madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Djibouti isagoo u sii jeeda dalka Tunisia halka uu kaga qayb galayo maalinta bariya shirka soddonaad ee caadiga kaas oo ay ka qayb galayaan madaxweynayaasha ururka jaamacadda Carabta waxa kulankaasi uu yahay mid looga wada xajoonayo midnimada iyo isku xirnaanka dalalka Carabta waxaana kulankaasi lagu soo qaadi doonaa dhowr arrimood oo looga doodi doona madaxweynaha Djibouti waxa garoonka ku sii sabootiyay مسؤولين كترسن حبناها حكومة جيبوتي iyo saraakiisha ciidamada iyada oo shirkaasi Suuriya dib ugu soo noqonaysa jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale waxa looga hadli doonaa arrimaha Soomaaliya iyo Yaban oo Djibouti diris la ah iyadoo dalalkaasi ay ka jiraan colaad daba dheeraatay waxa madaxweynaha Djibouti ku weeriyay safarkiisaasi wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf madaxweyne Geelle markii uu gaaray garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee wadankaasi Tunisia waxa halkaas ku soo dhaweeyay dhagiisa madaxweynaha dalkaasi Tunisia Beji Ciid الزبسي وحانا وفدق مدحوينها كوه إلينا سفر كيساسي وزير كاريمها الدبادة يسكاشيق عالمي جيبوتي مدني محمود علي يوسف يدنجرها دلك مصر جيبوتي يدنجرها دلك تونسيا أو ركتي سوعيتا ودنك فرانسيسكا آيات موسى يحيي وحانا كلان كصدونات أورك جامعات عربتا كقيب قليا مدح فربدن أو عالم كسعودة قارحان مدح جامعات عربتا shirweynaha soddonaad ee ururka jaamacadda Carabta ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynayaasha dalalka Carabta waxaana shirkaasi inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa xaaladaha wadanka Suuriya, Yaban, Liibiya iyo Soomaaliya iyadoo wafuud kale iyo ururo kale oo caalamkan ay ka qayb gali doonaan shirkaasi. Usmaan Bulxaan TV-ga caalamiga ee badda 24 Djibouti.